kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 27aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl. kulan wacan waa tahay qaybtan waxay noogu bilaaban doontaa baraarugii baari iyo waxa baldhacay. baari cadde wuxuu yimi iskuulkiisii barayfadka ahaa waxaanay wada kulmeen bilan oo ku sugnayd barxadda iskuulka waxaana xilligaa ay isu diyaarinaysay sidii xagaagan ay ugu baasi lahayd imtixaankan. bilan iyo baari markay wada kulmeen waxay wax iska weydiiyeen arrimo imtixaanka quseeyey waxaanuu baariyar kaga digay in qish ay samayso maadaama uu ku waaniyey in haddii ay wax qishto weligeed horumar ka gaari doonin waxa hankeeda ah. bilanna aad bay kaga ajiibtay wacyiga uu baari siiyey waxaana ay wada galeen imtixaankii. bilanna way kaga duwanayd imtixaanadii ay geli jirtay waayo imtixaankan wuxuu ahaa mid si fiican kaga shaqaysay ayadoo faraxsan ayayna warqadii u gudbisay mid ka mida macallimiintii imtixaankooda waardiye ka ahaa. baarina sidaa oo kale asna wuu ku najaxay inuu ka shaqeeyo waraaqadihii imtixaankiisa. markii ay dibadda u soo baxeen bilan iyo baari ayaa waxaa u yeedhay ustaad baxuux. markii xafiiska u gudbeen ustaadku wuxuu ku wacyigeliyey in waxbarashadooda ku dadaalaan. bilan iyo baarina sidii ayay ku sii kala dhaqaaqeen balse baari intuusan wajahaysan hooygiisii ayay ka codsatay bilan inuu u yimaado habeenkii xilliyada hore si uu kaga caawiyo casharada asna wuu ka aqbalay. baariyare markuu xaafadii saaray ayuu la kulmay gurigoodii oo gebi ahaan inta laysugu tegay la burburiyey. baarina asagoo naxsan ayuu deriskii u cararay waxaana loo sheegay in reerkoodii lasoo weeraray. dadka soo weerarayna ahaayeen cartan ninkuu tooreydu ku muday xubno ninkaasi qoyskiisa ka mid ah. baari wuxuu weydiiyey halkay ayagii qabteen waxaana loo sheegay in labadoodii cisbitaal loo waday. baarina arrinkaa aad buu kaga walaacay isla markiiba waxaa lagu daray wiil deriskooda ahaa si uu ugu geeyo goobta la geeyey eedadiisii hadaf baarti iyo walaalkiisii cartan ahaa. dhegeystayaal waxaa halkaa inooga dhan qaybtii 27aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl.
يسوق وحي إجتاعي مداد يسوق وحي إجتاعي إلا وحي